والله guryaha la isku soo galaya gudaha ka bilaabmaysa gudaha ciidanka xaquudirka jabhadda dulmidiid oo maanta kulan ku yeeshay saldhig ay ku leeyihiin duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa digniin kulal u jeediyay hoggaanka sare ee maamul goboleedka Hiirshabelle waxayna ku eedeeyeen in raalli ay isaga yihiin xaqa kaga maqan beesha makane gobolka Hiiraan iyo degmada Beledweyne oo si mug leh ay u degaan iyo qaabka loo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hiirshabelle waxayna ku goodiyeen in xuquuqda ay ku lahaayeen beesha hadda la joogo waqtigii ay soo dhacsan lahaayeen ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay afhayeenka jabhadda Maxamuud Maxamed Saxane waagi baryaba warxun baan maqlaa weerarya colaad kii hore ka weyn Soomaaliyeed waaba loogala darayba in guryaha la isku soo galo in goobaha ganacsiga la isku yimaado in dadkayga la handado in loo caga jugleeyo ya dadkayga in la handado in loo caga jugleeyo waa sugayna awalna waan qabnay shaatiga la doonayo in loo adeegsado ay tahay ka amisom ciidamada amisom waxaan leenahay wanaagiyo waalnimaan idin haynaa Soomaalidaanu ka mid nahay Soomaalida ayaanu ka mid nahay shaqada waddanka u joogtaan waa garanaysaa waa nabad ilaalin cidda ka ilaalinaysaana waa loo yahay anigu xaqayga raadsanaya dulmigaan diidaya inaad ugu taageertaan mooyaane inaynaan markaas noo soo adeegsan oo shaar aad leedihiin aan laygu dilin baan rabaa waxaa kaloo intaa ku daraya baaq baan joodina maalintii dhawootay bandhiga wixii ka soo baxay waanu garanaynaa waayo raggan maanta meesha jooga Soomaalidu waxay tiraahdaa qofkay maqasha kala qoosasho maqasha waxa la yiraahdaa ariga yar yar waxaraha qofkay kala qoosatay geela u dirataa ragii iyo gudoomiye gobolka maamulka tiri waayay marka maanta la yiri madaxweyne ku xigeen baa teen anagu ma naan dooranay noocay doonaan bay noo dhaqmaan xaq bay u leeyihiin waa baadilkii la koombaynayo ama cilad mishinta ku dhaqaaq ama laaliis soo bixi ama hanjabaad iyo caga jugeen iyo handadaadkeen ama yasma iyo kuwan maxay sheegayaan waa muruq maalkii waa xamaalatadii waa runta xamaalatadii baa la ka xaaraanta ma cuno cid xaraan cunta la sheegayaan xamaalataan nacam ilaahay baa adduunka ay keenay tacabuu ay keenay markii horeba aakhiriya adduun bayna tabcado sidaa darteed waxaan beesha afar makane baaq dheer iyo baaq gaaban buu u jeedinayaa bandhiga labaad ee dhici doona in dhammaantii ka soo wada qabakashaan sida labadoonnada odayaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada siyaasiga aqoonyahanka in allaale intaad beesha ka koobantihiin ba shirkaa waa inaan loo dayma la'aan arrin adduun iyo itaal intaba aan isugu darro haddii kale waxaa dhawoobi doonta hadalka aanu maqlayna ka soo yeedhay ee aniga mid ila dhashayo meesha fadhiya loo soo dhiibayo nimankan xildhibaanada Hiirshabelle aad ku sheegaysaan waxaa la yidhi geesi milaana yaqaana iyo doqon ma lifti taqaana way isku miyir daboolmaan guryaha laga hubbaa laga raadinaya shalayba lama raadinayna waxa loo daleeya waa aniga guryaha la gelaya waa kuwaygii waa taqaanaa hubkayaga iyo saanada halkaan ku leena waxba gabanina waxba annaga noo caga juglayna taasi way soo dhamaatay qodan Hiirshabelle ala guulaawe anigu guulaawe waan aqaanaa guulaawe ma aqaanaa guulaawe waan aqaanaa وعلى النص Soomaaliyeed baatay qofka inuu hamiga qamiga yeesho way fiican tahay laakiin waxaan ku sheegayaa nidig xaraana hal xaraana nidig xalaal ma dhasho waxaad ku timid baan ognahay kuwa ku doortay horta adaa isu doorto isku shubay afartii ay gaarkaaga joogtay kii kamarada ka duuliyo baan ka haysato qoqoratay tiibaan haddana ku aamusnaa war haday Soomaali ku midoobayso ama dalka nabadgeliyo walaalnimo lagu helayo waa aamusa wax allaale aad soo ma jirtay hanjabaada iyo caga jugleynta meel walba noga haysaan iyo faragelinta waxaan jecelahay deysan hadaydan deyn ثم والله واكي حصل شيخ شريفه ثم والله guryaha la isku soo galaya gudaha ka bilaabmaysa gudaha been bad xabaysoo dul melmelaysay ya oo idinku dusha iska melmelaysay bil wallahi buga la iska saaraya buga midaan dul marin lahayn midaan hebel weeyaan lahayn ayaa sujuud iska toogan doonaa waay wax anaga maanta loo haray ma jirto wax noo dambeeyaan jirin waxaan sugaynaa xaq ayaga hadii aan ku weynana bandhiga xiga bandhigi dhowtolka xiga ka saddexaad wallahi lama galay ka bilaabmaysa lama galay
raggii baneeyeyna waa la yaqaanaa ya raggii baneeyey jabisada markay ku jirtay baalka weyn ee la geli waayey raggii baneeyey waa la yaqaanaa ee laga tiriyey gabayga ahaa ninkii loo bugay rabtaa bartanka u galay rabtaa bahalka dilay rabtaa leebka ku bujiyey rabtaa ninkii loo bugay bahalka dilay rabtaa bartanka u galay rabtaa leebka ku bujiyey rabtaa lama galay baneeyey rabtaa birmada qaaday rabtaa baal dahab geesigii gacalwaabay rabtaa ya maanaa nin may taariikhdiisa qarsoontaa maanaa nin gobolkan hiiraan looga abtiriyaa maanaa nin gobolkan hiiraan looga soo jeedaa ma ihi mana sheegan kartid taariikh weyn ood ku leedahay gobolkan hebel baan dilay hebel baan cayn kala mooyaane wax kaloo sheegi kartaa ma jirto walaalayaalow nabad baana deeqda islaamnimaana deeqda dadnimaana deeqda intaa haddii la waayo taxun bay ku alla taqaanaa taxun ayay ku alla taqaanaa nafta ilaahay markuu abuuruu yidhi haye rabbigaagaa yaqin way diiday cadaabtaa la geliyey way diiday meel kasta la geli gaajaa lagu shalay markii dambe toobad keentay wallahi toobadkeenkii baa socda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyntii jenaraal xaydar xasan dhaqane ayaa ku goodiyey dagaal in ay wax ku raadin doonaan anigoo ah jenaraal xaydar xasan dhaqane jabhadda dulmidiid xaq u dirirka anuu u taagan nabad wax waa ku weynay nabad wax waa ku weynay islaamnimo wax waa ku weynay derisnimo wax waa ku weynay wax naloo wax kastaba wax waa ku weynay diyaar waxaan unahay markaan inaan qoriga afkiisa aan wax ku raadino xaqa aan ka tirsanayno dowladda federaalka iyo tan hirshabeelle iyo tan gobolka oo hadalladii maalin dhoweed iyo bandhigii naga soo baxay naloogu jawaabay inayna kuwaas maxay sheegayiin bal inaan wax sheegayno in kalo haddaan tusayaa aniga jenaraal xaydar ummaddana saasay ogaanaysaa nabadaan jecelnahay nabadda ciddii nala qaadan waysane kanaa noo xal kan xal kanaa noo markaan wax dambo oon iskugu noqonayno male cid allaale ciddii xalkaa diidane waxaan la maraynaan la maraynaa assalaamu calaykum waraxmatullah